biyahaas haday nijaasoobaan sidaynu daahirin karaynaa biyaha laftooda waxay u baahan yihiin in dib loo daahiriyo biyihii nijaasoobay sidee loo daahirin karaya waa mas'alo kale oo baaruntii iyada lafteeda in la dul istaago biyaha sidaanu tilmaanay laba qaybood bay noo kala haayeen biyo yar iyo biyo fara badan biyaha yar ee qulataynka ka yar ama halka foosta ka yar daahirin karaya biyaha in dil la ziyaadiyo biyo kala lagu daraya waa la kordhinayaa ilaa qulatayn laga gaarsiinayo biyihii yaraa waxa laga dhigayaa biyo fara badan waa la badinayaa biyihii ala markii hore qulatayn bay ka yaraayeen ama hal foostay ka yaraayeen biyihii biyo kala lagu daraya hal foosta la gaarsiinaya marka biyaha hal foosta la gaarsiiyo midabkoodii iyo urtoodii iyo dhadhankoodii midna aanu isbedelin biyahaasi saasay ku daahiroobeen waa biyihii yaraa biyo yaraa halka lagu daahirinayaa waxa weeyaan in biyahaas biyo kale lagu kordhiyo ilaa laga gaarsiinayo qulatayn laga gaarsiinayo ama hal foosta laga gaarsiinayo mar haddii hal foosta la gaarsiiyo waxaa la eegayaa un ala biyo fara badan bay noqdeen biyahan xagga urtooda iyo dhadhankooda iyo midabkooda wax isbedel miyuu ka muuqdaa mar haddaanu ka muuqan biyaha saasi ku daahiroobeen biyaha faraha badan iyagu biyo kale lagu daro kuma daahiroobayaan shay la soo qaado ee lagu dhex daray kuma daahiroobayaan waxay ku daahiroobayaan isbedelkii ku dhacay oo iskii u baabaa biyo maadaama isbedeleen xagga midabka iska bedeleen ama xagga urta iska bedeleen ama xagga dhadhanka iska bedeleen waxay ku daahiroobayaan isbedelkii oo meesha ka baxa waayo hawadan rabbaaniga rabbi subhanahu wa ta'ala inasiiyo wax badan bay nadiifisaa hawadani wax badan bay nadiifisaa hawadu haday wasakhowdana dhibaato badan baa ka dhalata marka biyaha waxa laga yaabaa marka leedo in badan ku dhacdo ee in badan leedo soo gaadho waxa laga yaabaa biyahan inay daahiroobaan oo iskooda isku bedelaan marka biyahaas xalkooda waxa weeyaan waa inay iskooda isku bedelaan ama biyo kale oo ka fara badan lagu daro si kasta waxa noqotee macnaha waa inay iskooda isku bedelaan mar kasta waxa shardi in biyaha faraha badan waxyaabihii keenay in nijaasoobaan oo ha isbedelkii ku yimiday inuu meesha ka baxo sidaas ay ku daahiroobayaan biyaha faraha badan biyaha marka laga yimaado waxyaabaha kala dareeraha ah ee aan biyaha ahayn sida caanihii malabkii subagii saliidii waxyaabaha kala dareeraha ah ee aan ahayn muxuu ahaa biyaha aan ahayn iyagu siday u nijaasoobaan iyagu waxay ku nijaasoobaan nijaasa ku dhacda ama ha yaraadaan ama ha fara badnaadaan haddaad haysato muxuu ahaa boqolaal foosto oo caana ama waxa weeye saliid ah ama subag ah oo ay nijaasa ku dhacdo sida ay ku nijaasoobeen weeyaan waa la daadinaya hal kale male waa la daadinaya waxay la mid yihiin biyaha yarun bay la mid yihiin biyaha yar haday nijaasa ku dhacdo way nijaasoobeen shay kasto maaya oo dareera oo aan biyaha ahayn haday nijaasa ku dhacdo way nijaasoobeen waxa la tilmaamaa imaam ibn Sirin Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi taabiciga qiimaha badnaa ayaa waxa la tilmaamaa waxa ganacsatadii waaweynada reer Basra ayuu ahaa Basra ka ganacsan jirtay marka aad wuxuu iibin jiray malabka ayuu ka ganacsan jiray isagoo dhowr boqol oo foosto oo malaba soo dajiyay oo keenay magaaladii Basra oo doonayay inuu Kuufa iyo Basra iyo Ciraaq ku iibiyo ayaa waxa dhacday foostooyinkii foosta kamida ayaa waxa ku dhacay jiir uu ku dhax baqtiyay marka jiir baa ku dhacay uu ku dhax baqtiyay dabeetana shaqaalihiisii mid ka mid ah intuu foosadii jirkii ka saaray ayuu foosadii muu daadinala macnaha wuxuu ruux iska caamaabo ahaa muu fahansanay macnaha nijaasowday wuxuu biyaha kale muu haystay intuu foosooyinkii qaaday oo meel kala dhigay ibn Sirin baa yimiday qisadii baa looga sheekay ibn Sirin dabeetana ibn Sirin wuxuu foosadii uu ku dhacay miyaad garanaysaa wuxuu ma waxa ka garan maayo foosooyinku way isku eegyihiin lana kala saari kari maayo waana isku wada mid marka waxa ibn Sirin culimadu waxay ku yiraahdeen ibn Sirinow de waa maadaama aan la kala saari kareynin haddii aad wada daadisana de ay imanayso dhibaato ka weyn ay imanayso oo dad badan oo kugu xidhnaa iyo adiga iyo wax dhan faqri kugu dhacaayo ijtihaad samay marka xogaa ijtihaadaad samaysato xogaa isbedelaad ka yara dareento taa daadi inta kalena iska hayso iibgee marka ibn Sirin wuxuu ahaa aad buu warac badnaa aymada aadka u warac badan ee aadka xalaal miirashada ugu badan buu ahaa wuxuu may intii foosadu ay qaldami lahayd ee foosa xaaraana oo nijaasa aan umada ka baayac musharayn lahaa ee aan ka iibin lahaa waxa ay dhaanto yiri anagoo aydhooba ayaa ay dhaanta deetana dhowrkii boqol ee foostay uu hayay malabkaada afku ciid u daray
ودادي فرمر مسوي استاجي سجى بعد دي شيلين كلو أروري لكن لما يبقى مشاريع هاي دقالها هيستي أيها فقرية كعامر مسوي استاجي سجى شيلين دبالو سكوك درايو وكسفر وكل عقاشيو مركا معنا لقى واحد كيف فهم يسا سلف كي صالح عها سيد حلال ميرشد وجود داري شيء يرى صوت قلب حوله لما يوهيستي بقولك فوسطها ودادي إننا وحاب لقى يابا ما أنت حارنتي ولا لقى تأثير يابا والعقل لقى سمينيا وكورة يالك يباشو كتيرته عقتوا بقى يقرأ شو ما أنت فرسدوا بالك بي كتيران هالكما ما أنت لقى لقى سمين كريا مركا سوق علينا ما أنت قبتي تبقى قلب حارن لقوا يبني وحيدو مركز كعدياني شيميو تشاني حيابها الله ياب كله سوقا وهي أنكو أركو حكم لها مالين بقى أنا مرة يسوق دحدي سواء كان ده سوق الددانو وحوي ودون يرى الله مرو لي أنا سوعنا يا ولاد كلا إلى السعودية وسوق السوق يرجع كل احترام مركز سامي السعودية واريستاج ولاد وين يستاجوا سوي بالعلاقة تمشي صورنا هيك مركز هو علاقة ماشي صورنا حبناها بالعادة قريب كم ذا لوير إكيسي مركز سامي كونهم حياهين مركز هو قار كدمبوي دمر كان حدا قار دمنا ويكسر ميسنا يصير الله صا إيجو مركز هالكاسي مريس إن حتى لسوا ورده معها وحويان أرض الفيش التماء أرض الفيش لا يقاني قار كيد دمنا لسوا ورده أو اللي بعنا قارنه هالكا وتحدى أو مضايق مرة يعني لو شرحه مركز وحوي السوق اللي باتوين بدنا ويكتشرين وحوي ضد بدنا وحنا يسمون ودينا ويكتشرين ضد بدنا مساكين وكتير سناي لكن حرامت اللي باتوا ذلك لا يعلى وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واحد ترى دباتان كوكب سنانين كي دباتة سميو كريه إنما نمدنا ولا جاريسا دمانتنا وتابع هذين ولا جارديو وحويان كي وناكسناي كي كلابا وتامانتا ولا جاردي إمانتا دباتة كتير تميارين وتامانتا لقى ورحيو إن مركا شيء هدو ما وياهي شيء دريرا وياهي يسوق مر هدو نجاس ما كل على وين نجاسوي والله إسكت عادنا يا إن واحد ترتبطنا هيمي واري هذا وقع عودان باترتا oo tusaale ahaan neefka marka la soo maalayo waxa laga yaabaa in digadi iyo waxyaabaha sacanada ay ku haraan marka adigoo maalayo aan war u haynin in saala yar kaaga soo dhacda laga yaabaa caaniina dawaad iib geynaysaa ma reerkaaga qud u yihiinba ama waba geeltiro wax kale oo ma hayo wuxuu xoolaba ka haya ama wax cuntada ka haya caanaha haraha ka maalayo marka maxaa la sameeyaa markaas kale ama waxa laga yaabaa in kaaga daadato muxuu ahaa waxa weeye in kaaga daadato كادين كاجا دا تاول جاي بجيله مع مركز على السمينية مركز على السكالين بس أنا مركز علماء وكهذا ينفق مذهب الشافعية ده مو يعني مذاهب تقول واحد قباري إني سنجاسة هين معنا صالة عاري جوردن يوحوي فضلات كاري كصوت كي ما دودني إني سنجاسة هين بالقبان شافعية ده كلي أي قبان إني نجاسة إتاي وكلي أي قبان هل حديثنا ولا جدول يا النبي عليه الصلاة والسلام قولوا يمدي magaalada Madiina oo Reemiya hada magaalada Madiina oo yimid ay islaamaan markii magaalada Madiina xoogaa joogeen bay daltubiyooday magaaladii bay la qabsan waayeen hawagadiis baa ku dhacay marka xoogaa way xanuunsadeen caloosha laga qabtay kadibna waxa nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri saxaabadu kula taliya hala kaxeeyo geela sadaqada ee duleedka magaalada Madiina daaqaya geelaha loo geeyo caanaha iyo kaadida geelaha la isku daro ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam u faray marka sidii baa la sameeyay waa la isku daray in badan bay isticmaalayeen way caafimaadeen markay caafimaadeen waa ku burcad ka noqday xoolihiiba dhacayba markii sida loo galay xoolihiiba way dhaceen waa qiso cajiib ah ka dhacday oo aayada quraanka ku soo degay marka nimankii adu waxay sameeyeen baa lagu abaal mariyay halkaas marka culimadu waxay ka dariishanayaan kaadida geela iyo waxyaabaha kale la halmaala xoolaha kale macna saddexda meesiba isku wada daro inay samcana nijaas ahayn halkaas ka dariishanayaan hadii nijaas tahay lama siiyeen شيء حار نبغى شيء حارين يعني دواء نبغى بالشجع مكيل الخمر الدواء كتيرته شيء حارين هاي دواء مجلين بنبغى عليه الصلاة والسلام مركال كاسي ودريشان يعني هل كان مكانه كذا صوب حنا بيها يعني بيها كان ما إنه وحكت المام دونا إنه جوا وده دمين كرينين ويسدا ما دام يتاي ويسدا تقوم بدنا هو مهم سن بدنا أنا يتاي مالك شن ترى نقصنا نقنيس وقدو صلاة كسي ويسقاته شن ترى بيكسر نقنيسا qofka aad tiraysa qofka ku dadaalana inta in ka badan bay ku soo noqnoqonaysa oo markasta uu suul galaba weysada ku dadaala isagana in ka badan bay ku soo noqnoqonaysa weysadu waxay leedahay furuud ama arkaan weysadu ay ku dhisan tahay hadii la waayana weysadu aan ansaxaynin ujeedadu ma aha
kaliya inta aan lagu gaabsado jeedada waxa weeye qofku markuu ogaado inta waajibka marka qaar ba waxa imanaysa biyaada haysa ay kugu aan kugu filaynba biyo yar baad haysaaba aan ku wada gaadhaynin mararkaas kale waxa looga faa'iideysanaysaa inta waajibka ee sharciga islaamka kugu waajibiyay intaas ma marka Allah imanaysa ayuma meeraysa labihi way yar yihiin laakiin marka dabiye badan aad haysato waxa laga rabaa hatta sunnayaasheena dhameystirta laga rabaa si adrigu kugu dhameystirmo kana horeeyo waxa weeye waa aniya ruuxu waa inuu niyeystaa markuu weysaysanaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inama al-a'maalu bin-niyaat wa inama likulli imri'in ma nawa wa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay a'maasho dhan waa niyada qofka sana wixii uu niyeysto buu helayaa ama uu leeyahay marka ruuxu waa inuu niyeystaa inuu weysaysanaayo kalabaadna waa ghaslul wajhi qofka wajigiisa inuu mayro wajigu xad buu leeyahay xad ayuu leeyahay lagu xadeeyay marka wajiga marka la xadeeyay waxa loo xadeeyaa laba dhinac ba laga xadeeyaa mar dharrahan baa loo xadeeyaa marna balac ahaan baa loo xadeeyaa dharrahan waxa wajiga la tilmaamaa wajigu inuu ka soo bilaabmayo min manbati sha'ri halka timu ay ku joogaan fooda laga soo bilaabaya ila dhaqni ila lafta garka laga soo gaarayo inta u dhaxaysa waa dharrahan balac ahaan waxa waa min al-uduni ila al-uduni dhagta ka bilowda dhagta kale laga gaaray inta u dhaxaysa marka ciyaalku markay fool dhaqanayaan habka isticmaali jireen weyso noqon mayso iyagu badana markay fool dhaqanayaan intaas oo kale ay meedaan inta way ka tagaan hatta haaridka garka ka sareeya ee dhigaha ka hooseeyo waa soo galaya hatta garka soo galaya ku jira haduu san weynin garka haduu weyn yahay gudihiisa waajib ma dushiisa sareen la meedaa waajiba marka ruuxa garkiisu yar yahay haaridkiisa haaridadana yar yihiin dhammaan inuu wada meedaa waajib bay ku tahay waxa kale waajib ku noqonaya waxa Allah ariyo waxa timo wajiga ka soo baxa haday timo wajiga ku soo galaan iyo haddii timo kale ay ka soo baxaan dhammaan ruuxu inuu meedaa waajib weeyaan meel kasto godo inuu meedaa waajib weey shay ka soo zaaydo wajiga ka soo dul baxay inuu meedaa waajib weey wax ka soo xadka wajiga ku jira inuu meedaa waajib bay ku noqonaysaa ka saddexaad wuxuu noqonayaa waa qaslu al-yadayn ma'a al-mirfaqayn waa in labada gacmood la meedaa ilaa suxulada la meedaya suxuladu way ku jiraan wala raacinaya waa culimada ma la yatimu waajibu illa bihi fa huwa waajib shayga aan waajibka la dhameystirayna illa la soo raaciyo mooyee isaga in la raaciyo waajib buu noqonaya suxulkeena meedha waxa ku xaqiiqsan karaysa marka in yar xagan soo raaciso xagan xuduudda marka in yar ku soo darto marka in yar xuduudda kamidana wala soo raacinaya laakiin waajibku waa illa suxulka laga gaarayo ila gacmaha dhan baa la meedaya ila suxulada ila gacmaha dhan baa la meedaya waa la gartay kaafaraad wuxuu isaguna uu noqonay marka gacmaha waxa la raacinaya gacmaha gacan ka soo zaaido ka soo baxda ana far zaaido haduu ruuxu leeyahay waa raacinaya gacantiisa gacan yar oo kala zaaido hadii ka soo baxdo uu raacinaya hadii laba gacmood uu yeesho macna way dhici kartaa labada gacmo marka la eego hadii labada gacmo mid awood leedahay oo awood badan tahay taasi ta kale waa la raacinaya isku xukun bay noqonayaan marka waa la israacinaya waxa kale iyadana isweydiin hadii gacanta ay ka go'an tahay kolba qadarka haduu meedaya haday qayb go'an tahay qaybta waxa haduu meedaya haday gacanta inta aanu tilmaanay ilaa suuq oo dhan baa go'an marka waajibku waa ka dhacay laana intii waajibka ahayd inuu meeraa kuma ma taalo waxaana macna al-maysur la yasqud bil ma'sur ay qaacido ay tahay shayga la waayay shayga jooga kuma dhaco mar hadii shayga qayb joogto inta joogta laga raba laakiin mar hadii la wada waayay maxal ma yirinba waajibka meesha kuma yaale intii waajibka mar hadaan meeshiba ku oolin ama qadarana kaaga goodo ama marka hore qofka ku soo dhashay gacan la'aanta waxa weeyaan isagana waajib kuma aha inuu meeraa marka culimada qaar waxay tilmaamaan hadii xuduudu u soo hadhay oo kale inuu yara masaxaaway fiican tahay culimada qaar baa sidaa tilmaama ama sunna ka dhiga hadaynu gacantana halka kaga baxno qaybka ka afraad ama rugniga ama faralka afraad wuxuu noqonayaa masxu shay'in min ba'd ar-ra'si madaxiisa qayb kamida inuu masaxo waa sida madhabta shaafiiciyadu ay qabto culimada qayb badan oo kamida waxay leeyihiin waxa waajib ah masxu jamiic ar-ra'si ruuxu madaxiisa oo dhan inuu masaxa waajib ah marka madaxa laga hadlayaa waxa way saanta lafteeda noqonaysa hadaan ruuxu timo lahayn haduu timo leeyahay in timaha uu masaxaya waa timo xadka aan ka baxsan xaddu ra'siga hadii la jiido tintaas xaddu ra'si inaan ka baxaynin marka maxaa ku baxaya مثلا mar hadii madaxa waa in la masaxaa timihina madaxay kamid yihiin ruuxa dumara waa kuwan timahoodu badan timaha dheer bay la baxaan timaha ka dagay xadka madaxa dhaafay ee garabka gaaray ee hoos u daadagay timaha intay soo qabato ma masaxi karayso laana xadkii madaxa kuma yaalaan
timaha masaxaysa waa timaha xadka madaxa aan dhaafinin tintii hadii la jiido xadka madaxa aan ka daadagaynin ee inta wajiga aanu talaabaynin ama luqunta qoorta dambe aanu daadagaynin ama garbaha aanu daadagaynin ama dhagaha iyo waxa ka hooseeya aanu daadagaynin timaha la masaxayo waa timahaas waa timaha xadka madaxa ku jira laana kuwaas waxay qaadanayaan magacii madaxa kuwaas qaadanaya kuwaas la masixi karaya markaa ka lixaada u dambeeya wuxuu noqonayaa tartiib ma hajada shanaad wuxuu noqonayaa ghaslu rijlayn waa in la mayraa labada lugood waa in la mayraa labada lugood in la mayraa waa waajib weeyaan waliba waxa la mayrayaa ilaa laga soo gaarayo kuraamaha ilaa kuraamaha laga soo gaarayo ayaa la mayrayaa kuraamaha iyo inta ka hooseysa ayaa waajiba wixii ka sareeya waa sunno weeyaan wana masalada dad badan ay ku leexsameen qolooyinka shiicada waxay qabaan lugaha inaan la mayri karin masalada aynu tagi doonaa insha Allah waynu ka warrami doonaaye ee loo yaqaan muxuu ahaa almasx ala alkhuffayn labada khuf in la masaxaas ay ku dagmeen magaasa waxay leeyihiin masaxan la masaxaya waxa weey masaxan la masaxaya waa ka dambeeyay bay leeyihiin muxuu ahaa aayada soo degideeda marka lugaha in la masaxaa waajib weeyaan lugaha waa la masaxaya loo mayri karin idan hadaa tagtay masaajida qolooyinka shiicada ay gacanta ku hayaan meelaha lagu weysta waa qasabada kar u taagan hadaad gasho meelaha lugaha kaga maydho helimaysi ana way ugu talagaleen ruuxa yimaada inuu san lugaha maydhin ee lugaha u masaxo xagga sare ku dhajinayeen qasabada halkaas markaad ka weysiisanaysa gacmaha iyo wajigeena ku maydhin bay ugu talagaleen ada cagta la gaarin hadaad cagta kor u qaado ma gaaraysaba marka way ugu talagaleen in halka la maydhin laakiin iyagu umada muslimiinta way ka baydheen sida muslimiinta sunnaha ama muslimiinta aan shiicada ahayn sida isku raaceen waxa weeyaan in lugaha la maydho waa waajib weeyaan masalada kaliya ay banaantahay in la masaxo marka ruuxu laga qof xiran yahay taasna sida ku banaantahay waynu ka warrami doonaa hadii waqtigu inoo saamaxo ka u dambeeyo waxa weeye waa tartiib waa in la kala horeysiiyaa weysada sida ay u kala horeyso waa loo kala horeysiiyaa waxaanu ka soo bilownay wajiga gacmaha inuu ku xigsiinay madaxa lagu xigsiiyay lugaha loo dambeysiyay sida waa in loo kala horeysiiyaa maxaa u daliila waxa u daliila ficlu nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu weysaysanayay intaasoo jeer baa laga wariyay nabiga inuu weysaystay intaasoo saxaabiyo kala duwan baa ka wariyay waxay tilmaameen habka aayada quraanka ay sheegtay in macna uu weysaystay takana waxa u daliilay culimadu laba shay oo isku mid ah oo isku si loo sameeyo oo labaduba maydhitaan ayaa waxa la soo kala dhaxgeliyay masax baa la soo kala dhaxgeliyay waa laba shay isku cadfan cadafka waa laba shay macna israacsan oo isku laran oo isku xukuma ayaa shay ka duwan baa la soo dhaxgeliyay ujeedadu waa maxay inay kala horeeyaan ilaahay ka waramaya ayu alladina aamanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum waxay raacsan tahay faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ay ku cadfantay waxa loo dhaxaysiiyay wamsahu bi ru'usikum madaxiina masax maxaa markaa loogu dhaxaysiinaya aayaddu waxay ku dareensiinaysaa madaxa in la masaxayo lugaha in la maydho hadda maydhiga iyo waxa israacsan gacmuhuna waa maydhitaan luguna waa maydhitaan madaxu laakiin waa masaxitaan madaxii baa la soo dhaxgeliyay macnaha waxa laga wadaa way kala horeeyaan sida loo kala horeysiiyo waa sida aayadda quraanka ay tilmaantay marka saasana loo kala horeysiinaya aayadda marka aanu akhrinayna daliil u ah aayaddaas shantan u dambeeyada taaniyada u horeysa maniyada xadiidkii hore aanu tilmaanay waa u daliila laakiin shantan dambe aayaddaas u daliila aayaddaas ka warrantay oo dhammaan wada tilmaantay tartiibta hadaynu ka duulno hadii ruuxu ka waran cagsi sameeyo halkuu wajiga ka bilaabay ilaa gacmaha ka bilaabay kadib uu hadana wajiga maydhay kadib uu hadana lugaha maydhay hadana madaxu masaxay kaliya waxa ka ansaxo wajiga uu maydhay ayuu ka ansaxa inta kale waynu ku celiyaa halka waxa ka soo baxaysa tusaale kale ka soo baxaya marka qaar waxa dhacdo ruuxu inuu nabar soo gaaro gacanta oo kale nabarkaas soo gaaray ama madaxo kale nabarkaas soo gaaray waxa doonaysa inay weysaysato meeshii nabarku soo gaaray loo mayri karayo waxa lagu bedelayaa gabagabays marka waxa la rabaa markaad gabagabaysanayso xubinka markaad marayso xubinka nabarku soo gaaray markaad marayso in gabagabaysiga aad raacaysa la rabaa qaladaadka dhacay ka mid tahay waxa laga ruuxu nabarku ka soo gaaray madaxa nabar ka soo gaaray madaxo dhan nabar ka soo gaaray madaxo dhan waa la duubay biyo marin karo madaxo dhan waa duubay muxuu sameeyaa marka waxa laga yaabaa qaladaadka dhaca waxa kamid ah
wuu iska soo weysaysanaya wajigu soo maydhaya gacmuhu maydhaya luguhu maydhaya markuu isqalajiyo kadib ayuu gabagabeysanaya xagaad ka gabagabeysatay madaxaana wargaga dhacaan ka gabagabeystay xagaad way ka gabagabeysatay meeshiisa oo maahe madaxa lagu hayaa horeeyay soo madaxu ma horeyni waxa la rabaa madaxa marka la marayo markuu wajiga soo maydho gacmaha maydho inuu biyaha iska qalajiyo xogaa uu iska soo wareego biyaha iska qalajiyo kadib uu gabagabayso markuu gabagabayso ayuu gabagabaysiga wuxuu bedel ka yahay weysada oo dhan ma waa madaxo kaliya kadib markaa uu lugu maydhaya marka xubin kasta marka la joogo haddii aad u baahato gabagabaysi xubinkaa markaad maraysaa gabagabaysiga la imanaysa markaasaad la imanaysaa waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa lugahoo kale labada lugood lugta midig ayuuna markaaga yaallaa markaasoo kale way ku bannaantay bidixda inaad maydho kadibna aad gabagabaysato leanna midigta iyo bidixda in la kala horraysiiyaa waajib ma yahay inay sunna yahay labada macnaa midig iyo bidixda midigta la horraysiyo bidixda la dambaysiiyaa waajib ma yahay inay sunna yahay markaasoo kale way ku bannaan tahay weysada waxay leedahay sunnayaal dhowra ayay leedahay sunnayaasheeda waxaa ka mid ah ruuxu markuu weysaysanaya inuu bisaka qabsado inuu bismillaah yidhaahdo waxaa ka mid ah inuu cadayga isticmaalo intaanu weysada bilaabin waxaa ka mid ah inuu labadaa gacmood hore uu maydho cumtaa hore inuu maydho waxaa ka mid ah inuu luqluqdo sandaarsado waa ka mid waxaa ka mid ah weysada markuu weysaysanayo saddex jeer inuu maydho ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah haddaynu madhabka shaaficiga ku soconno in dhammaan madax hore inuu masaxo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah inuu sameeyo takhliil garkiisu hadduu aad u weyn yahay inuu gacmaha sidaa u dhexgeliyo si biyo ay u gaadhaan waa sunne waxaa kaloo ka mid ah markuu weysaysanayo farihiisa inuu isdhexgeliyo oo uu takhliiliyo oo faraha isdhexgeliyo iyaduna sunno wey faraha macnaha gacmihiisa farihiisa iyo faraha lugahaba inuu takhliil ku sameeyo iyaduna sunno weeyaan waxaa kaloo sunnayaasha ka mid ah markuu weysada dhameeyo inuu macnaha duceeyo oo ducada uu akhristo ashhadu an laa ilaaha ila allah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم دعاء معناه انه اخري والدك النبي عليه الصلاه والسلام كسو aroortay kadibna uu laba ragcadood inuu tukado sunnayaasha ay ka mid tahay inta waxaan raacin doonaa qayb badan oo weysada noogu dhimane almasx ala alkhuffayn maadaama inuu lugaha soo hadal qaadnay lugaha waxa jira marka qaar ay banaan tahay in la masaxaa goorma lugaha la masixi karaa lugaha waxa la masixi karaa marka ruuxani laba qof u gashan yahay khufku waa sharabaadada adag weeyaan sharabaadada khafiifka ma aha kuwa ayaga lama masixi karayo culimada qaar baa baneeyay laakiin sida raajixa hadii la eego ka salaad ma galayso way biyaba celin maayaan khufna lama oran karayo waa sharabaad weey waa mara caadiya marka mara caadiya lama masixi karaye waxa la masaxaya waa shay adag oo lagu socon karayo shuruudu leey shuruudaha marka la helo la masixi karaya shuruudaha waxa kamid ah koow an yalbisahu ala taharatin kaamila markuu xidhanayo inuu ku xidhay dahaaro dhameystiran marka labada qof aad gashanaysay adigoo weysadaada ay ku dhameystiran tahay oo weyse qaba waa inaad xidhatay marka hore waa weysaysataa dhamaystirata marka weyse qaadata xataa cagaha maydho adoo cagti midax ku haysanta ma gashan kartid cagti midig baad maydhay waad gelisay kadibna tii bidix baad maydhay waad gelisay may laba masixi karaya marka laana dahaaradii ma dhameystirin waxa la rabaa inuu ruuxu galiyo inuu macnaha gashado isagoo dahaariisu dhammaystirantay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kila markii saxaabigii intuu farasay uu sidii ka saar khafafka ayuu wuxuu dacahuma fa inni adkhaltuhuma daahiratayn macnaha waxaan geliyay iyagoo lugaga ay daahir yihiin macnaha dahaaradii dhammaystiran tahay ayaan labada qof xidhaye iska daawi ay ga saareen waa masaxayaay shardiga koowaad waa ka shardiga labaadna waxa weeyaan waa inay yihiin daahiran waa inay daahir yihiin oo aysan nijaas ahayn hadday nijaas yihiin nijaasoo kale waxay noqonayaa harag aan la magdiyeynin oo aan la daahirin oo neef baktiye laga soo saaray ayaa laga sameeyey lamana magdiyeynin waa nijaas markaasaad soo xidhatay dee nijaasaad xidhantayba iska daa waxaad masaxday iyo wax kale haddaad salaadaad ku tukataan ka ansaxaynin shardiga saddexaad wuxuu noqonayaa qawiyan yumkinu mutaabacatu lmashyi calayhi waa inyihiin kuwa xoog ah oo lagu socon karaayo ruuxu intuu kama maarmo waa inuu ku socon karaya waxtaa u daliila qofku inuu sidaa yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramaya xajka ayaa wuxuu ruuxa waaye kaba sandhala waaya laba qof ha soo qaato xagga saraha ka jira markaa wixii kulaamaha ka sareeya ha ka jaro inta dambana ha ku daayo waa markuu waayo kaba kaloo sandhala uu xidho markuu waayo marka in lagu socon karo waxaad ka dareemaysaa dee waa kaa nabigu wax lagu xajiyo makana waxaa la yaqaanaa buuruhu way ku badan yihiin lagu xajiyo markaa shay lagu socon karayo waa inay yihiin
shardiga afraad wuxuu noqonayaa saatiran limaxalli lghasli waa inay wada qarinayaan maxal ghasliga intii la mayrayay ee in la mayrayay waajibka ay wayna qarinayaan ilaa kuraamaha waa inay qarinayaan haddaanay kuraamaha qarinaynin lama mayri karo su'aal simir waxay disinaya sharabaada iyo risoo ma jiraan dhalinyaro wada xidhato oo aan kuraamahaba gaadhin kuwaasoo kale haddii qofku noocaasoo kale loo soo sameeyo way jiraan qof noocaasaa jira ma badna laakiin haddii loo soo sameeyo lama masixi karayo lianna maxalul ghusliga intii loogu talagalay weysada in la maydhaa weli may dhammaystirin waayo macnaha dhammaystiraanay asturaan ka shanaad wuxuu noqonayaa maanican nufuud almaa waa inay diidayaan biyo inay ka dhex baxaan qofofkaas haddaad biyo ku shubto waa inay biyaha celinayaan suusada loo xidhayo mooyaane xagan xadhkaha haddii xadhka ay leedahay xadhka lagu xidhayo ama suusada ay leedahay suusada haddii biyuhu ka soo galaan dhibaato male waayo suusada marna waa la furaya marna waa la xidhaya laakiin meelaha kale waa inaan ka soo gelaynin haddaba halkaa waxaa ku hadhay markaa sharabaadadii baa ku hadhay sharabaadoo biyo ma celinaysaa may celin maayo kabtaada haddii macnaha kabaha qaar ba waxa jira buurka markaa la baarashaynayo waa la maydhaa haddii la maydho kabtaasi ay yaro qoyanta oo sharabaadkaada xidhan aad gashato sharabaadkeed ka dareemaysa qoyaanka wuxuu kaa celiyay iska daayay marka sharabaadkii ma gelayo masixitaan ma gelayo laba masixi karaya marka taasina taa weey qofku intuu wada karaya masixitaanka waxa loo kala qaadaya muqiim iyo musaafir deegaan iyo ruux socdaala ruuxa deegaanka ee gurigiisa jooga habeen iyo maalin ma masixi karaya waa 24 saacadood ma masixi karaya 24 saacadood haday ka dhamaadaan waa inuu iska saaro caadi u dhahaaro qaata kadib aad dib ka gashanaya marka 24 saacadood xiriir ayuu wada karaya ruuxa laakiin socdaalka ee musaafirka isagu 3 maalmood iyo 3dooda habeen ayuu wadaya 3 maalmo isugu wadaya oo masaxanaya muddada xagee ka bilaamaysaa masixitaanka goorma la bilaabo muddada maalinta iyo habeenka qofka deegaanka qofka musaafirka 3 maalmood iyo 3dooda habeen xagee looga bilaabaya moogu sidaa xidhaa looga bilaabaya masixili kale min xiin lubsi laga bilaabaya miya mise waqti kale laga bilaabaya may markuu xidho laga bilaabi maayo waxa laga bilaabaya min xiin alhadath marka ugu horeysa weysa jabo ana isagoo weysa qaba soo muu xidhan مثلا waxa wada xidhatay adigoo weysa qaba salaadii casr baad soo weysisatay labadii qof baad xidhatay salaadii casr baad ku tukatay maghrib baad ku tukatay cishaay baad ku tukatay waad soo jeeday subax baad ku tukatay waa weysada casrkii salaadii subax marka sidaa uga baxday ayaa suuli u baahatay goorbay weysa jabtay salaadii subax kadib sooma markaas lagaga tirinaya markaas ilaahay loo tiri habeen maalintii koow hadda lagaga oranay saacadii koobaad marka waxa subaxa kale maalinka soo subaxeeda marka la gaaro ka dhamaanay laakiin hadii laga tirin lahaa min xilubs hadii laga tirin lahaa iyadoo subaxaba la gaaro marka casarka la gaaro ayuu ka dhamaan laana casarka baad xidhatay marka xiliga xidhatay laga tirin maaye waxa laga tirinayaa marka aad weysa jabto laana marka ugu horeysa masax bilaabaysa way marka weysa jabto way weysadan hore masixitaan ma yahay ee waa weysadii dahaarada dhamayska tirneed ee dahaara qaadatay weeyaan marka xiligaas laga tirinaya xagee la masaxaya marka qofka waxa waajiba xaga sare la masaxa waajiba xaga hoose la masaxa waa sunne xaga sare waa inaad ka masaxdaa qaybta sare ayaad masaxaysaa waa kii cali radiyallahu anhu la yaabana ilaa law kaana diinu birray diintu haday aqli iyo waxa la tahay ahaan lahayd la kaana almasxu awla bi asfal alkhuffayn ana wuxuu leeyahay waxa masixitaagu ku haboonaan lahaa xaga hoose in la masaxada waa ahaan lahayd waayo marka adiga aqli baad leedahay marka aqligaaga u eegto ciida iyo dhulka iyo boorka ayaa gaaraya xaga hoose Soomaa hadaa markaad kabaha iska saarto kabaha xaga sharabaadadu ciidu xaga sare kama qabatee xaga hoose ka qabata misaajidka haduu xogaa ciid iyo waxyar leeyahay xaga hoose ay ka qabsanaysa marka dawgu wuxuu noqon lahaa xaga hoose laga masaxo laakiin diintu ra'yi maaha oo qof kasta waxa la tahay maahe diintu waa ilaahay inoo soo dajiyay sida ilaahay inoo soo dajiyaan u fulinayna marka xaga sare waajibku waa xaga sare masaxda hadaa xaga hoose masaxdo waa xaga sare aad masaxi weydo ma weysaysan ana masaxi ma sameeynin marka xaga sare aad masaxdo markaas aad masaxi sameeysay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam